gudaha bay kaga jirtaa ummadda Soomaaliyeed waa la ogyahay ma xuquuqdeedu inay halkaas soo fadhiisto keliyata wax ka weyn baa la siiyay hankiina hoos u soo celinina baan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed haddaan taas uga gudbo qodobka 8aad si xildhibaanadu hore ay ka dhawaajiyeen waa in aad loogu fiirsadaa Soomaaliyeed buu ahay Soomaaliyeedkii lagu daayo waa in aan laga dhigin maxay Soomaaliya walibana waxa lagu sii xusay sharaxaadda markii sameeyay qolada guddigu iyadoo Soomaali loo danaynayo maahe iyadoo dawladda jaarka loo danaynayo qof wala soo baxo halkaan eeg waxaan ku waafaqsanahay maxay xildhibaanadii iga horeeyay in arrinkaas Soomaaliyeed lagu daayo oo aan laga dhigin maxay Soomaaliya iyadoo loo danaynayo maxay dawladda jaarka qodobka kale 8aad qaybtiisa afraad waa laga tagay kaana waa lagu soo celiyaa sidoo ahaa oo sheegay maxay qofka inaan laga qaadi karin jinsiyadda arrimo siyaasadeed saas ugu jiray markii hore haddana lagu soo celiyo qofka arrimo siyaasadeed loogama qaadi karo jinsiyadiisa qof walba ogow qodobka waa laga tagay xildhibaanadu ha ogaadaan waa dadka ugu badan ee hadhow tolo meelaha ka hadli doona amba hadda aadanba bari aado qofka siyaasiga xuquuqdiisa kuma waayi karo jinsiyadiisa kuma waayi karo hadal siyaasadeed marka qodobka lagu soo celiyo qolada guddigana aad ugu fiirsada lagu soo celiyo qaybta kale jinsiyadda ay sheegaysa iyadana imika laga hadlayay qofka Soomaaliga inaga waxay noo qoran maxay jinsiyadda inay tahay maxay dhalasho waa dhiig taa lagu daayo alla iska ilaaliyo maxay waxyaabaha kale hadda la sheegayo intaas ku soo koobaya waana maasantiin